gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir mudane Xuseen Maxamed Nuur ayaa shir gudoomiyay kulan looga hadlayay dardargelinta ka hortagga khataraha la xiriira gurmadka degdega iyo maareynta musiibooyinka iyadoo kulankaasi ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta degmooyinka Hodan iyo Wadajir oo horey maamulka gobolka Banaadir ugu hirgeliyay xarumo ku saabsan gurmadka degdega iyo maareynta musiibooyinka sidoo kale waxaa kulan goobjoog ka ahaa shirkadaha ka howlgala caasimadda ee ka shaqeeya arrimaha gurmadka degdega waxaa kulanka sidoo kale goobjoog ka ahaa waaxda gurmadka degdega iyo maareynta musiibooyinka ee dowladda hoose xamar kulanka intuu socday ayaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir waxa uu kula dardaarmay mas'uuliyiinta kala duwan ee ka socda degmooyinka iyo sidoo kale shirkadaha ka howlgala caasimadda in la iska kaashado sidii bulshada caasimadda ku nool loogala tacaali lahaa arrimaha ku saabsan maareynta musiibooyinka maamul gobolka Banaadir gaar ahaan qaybta maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ku holoneed sidii bulshada caasimadda ku nool loogu fududeyn lahaa adeegyada la xiriira gurmadka degdega iyo maareynta musiibooyinka si loo fududeeyo ka hortagga musiibooyinka xilliyada qaar dhaca. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.